dadka Soomaaliyeed waxyaabo lama taabtaan ah oo dhowrsan ayaa jiro oo ay tahay qof kasta muwaadin inuu ilaaliyo dhowro lafaan la jibina ku jirtadii la dhigi jiray oo kala waay walaal dadka Soomaaliyeed dhamaantood meel kasta ay joogaan laba arrimood dadka Soomaaliyeed dhamaan meel kasta ay joogaan waa muwaadiniin horta muwaadin Soomaaliyeed ee dalka Soomaaliya ku nool ee muwaadin Soomaaliyeed ah kalama sareeyo kalama fiicna kalama hayb iyo sharaf iyo haybad badna waa muwaadin Soomaaliyeed waana sameeyeen muwaadiniinta Soomaaliyeed malaha mid cagaaran iyo mid gaduudan mid maxaan ku raadaya midab huruud leh malaha dhamaan waa muwaadiniin Soomaaliyeed qawaaniinta iyo shuruucda iyo dastuurkan waa ku tilmaamayeen da Soomaalinimada iyo damiirkeena iyo dadnimadeena waa nafare dadaan nahay ilaahay u nimceeyay wax walba ka midaysan inaan anaga carabkeena isku kala saarno macna ma sameynayso sheekheena muxuu ahay khayr Allah siiye waad maqlaysaan sida ay diintu waxa ay ka qabto rasuulku waxa uu ka yiri bada ilaahay waxa ay ka dhaheen yaani midnimada ummadda midaysnaanta xagga ra'yiga xagga codka xagga maxaan ku raadayay niyada in dadku ay ka midoobaan waa waxa wax ugu fiican ummadasho diinta islaamkana waxaan muslimiin ku wadanahay inaan ka midownay qulubta iyo aqeedada inaan ka midownayaan ummad muslimiina u nahay hadii kala de ummadaha caalamka jiro kala duwan waxba kamaanaan duwanaaneen waxaan uga duwanahay inaan muslimiin nahay oo diinta islaamka ku midownay oo qalbiga ka midaysanahay waxaan uga duwanahay inaan Soomaali nahay Soomaalinimada naga dhaxayso dalku naga dhaxay dawladnimadu naga dhaxayso haybada iyo sharafta Soomaalinimada iyo dawladnimadu ay leedahayna inay naga dhaxayso aab waaye in aan dadka Soomaaliyeed ee sidaas ah ee ilaahay uu siiyay raxmadaas arabkeena inaan ku kala saarno oo kuwan waa ku cagaarnay kuwan waa ku guduudnay kuwan waa ku midoobay kuwan waa ku inaan dhahno awlaada arabka ka bilaabatay afka sheegidiisa wax kala ma dhasho waxay dhashaa dhiig inuu daatay dhashaa marka dambe kelmadaas afkaaga ka soo baxday ummad dhamay kala qaybinay daday kala geynay cadaawaday abuuray markaas marka kelmadaadii xumaan dadkaageena xumaantaas ay dhax dhigtay cadawgaageena waa farax gelisay intaasoo ku farxay ma ujeedaa kuwii xoolaha ay sida isku haystaan waxa ka dhax socday waxay sheegeen ma aragtaa wada xaqu inta fariiso muxuu ahaay waxayna cadawga maad u shaqaysay mise danta caamka aad ka shaqaysay markaad cadawga farax gelisid walaalkaaga Soomaaligaana aad muxuu ahaay aad gelisid yani xumaan aad gelisid walaalayaal dadka Soomaaliyeed meel ka soo joogaan arintaas waa dabin loo dhigay oo dadka Soomaaliyeed loo dhigay oo ay u dhigeen cadawga oo ay u adeegsanayaan kuwa xun joojiya kulligan sharafaan leenahay haybadaan leenahay karaamaan leenahay muwaadiniinaan nahay dalkaanaan leenahay dawladdaanaan leenahay ma kala xigno kuma kala sareyno kuma kala maxaan ku raadaan magaciisa waa wada leenahay sidaas ay tahay marka qof dawladda cilad waa ka qabi kara qof dawladdu dhaliil waa u qabi kara qof kala dhaliil waa u qabi kara aniga laakiin degaan gaara iyo qabiil gaara iyo jamaaca gaara oo xataa qabiil ahayn xumaan uma wada qabi karo wala taziru waziratu wizra ukhra xumaantu waa fardi waa qof xumaa karo qof qaldami karo qabiil ma qaldamo degaan ma qaldamo jamaaca isku tagtay oo wanaagsan waxa wanaaga lagu yaqiinay ma wada khaldami karaan qof qaldan kamid aha karo waxa bariyahan socday wax fiican ma taas waa intaas soo hartay siyaasadda dadka siyaasiyiinta ah ee shacabka Soomaaliyeed meel ka soo joogo soo doortay soo wakiishay ee baarlamaanka labada aqal ku jira ee xukuumadda ku jira ee dawlad goboleedyada jooga ee deegaanadooda ka taliya ee la soo wakiishay xumaan ma qabaan xumaan kuma ogin khilaaf kuma ogin colaad iyo dagaal kuma ogin dalku golo wasiiro leeyahay waligood ayagoo iskhilaafsan oo kala tagay meedaan arkinina madal oo lagu wada tashado oo dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada ka dhaxeeya subada intaasoo jeeray intaasoo shirayeen intaasoo go'aan soo saaray ayagoo inta iskhilaaf kala tagay wali lama arag
baarlamaana dalku leeyahay baarlamaanka waa dhisan yahay labadiisa aqalba waa shaqeeyaan baarlamaan inuu doodaa loo sameeyay dood waa ka dhex jiri kartaa laakiin ma kala tagin baarlamaanka waa wada jooga waa shaqeynaya qaraaro gaaraya waa socda waliba 10 jeer aan sheegnay baarlamaanka ugu fiicnaayo dalka Soomaaliya waliba jooga oo shaqadii ugu fiicnaado badnad dalka qabtaa jooga dadka joogana waxa qabtay kuraasta iyo miisaska baarlamaanka dhex yaala shaqada ma qaban xildhibaanadii la soo wakiisho ummadda Soomaaliyeed mathalay yaa qabtay shaqadaas wanaagsan baarlamaanku waa fiican yahay baarlamaanadii la soo maray kii ugu fiicnaa waa xukuumadda sidoo kale waa ma awdweed wada aragteen bandhigeedii labadii sano la soo dhaaf wixii ay qabatay xukuumadda ay soo bandhigaysay maanta dalku walaalayaal waa fiican yahay haddii shabaab la eriyay waa erinay waa sii wadnaa dagaalkiisii kamaanaan arag waa ku jirnaa wax qabad hadduu jiro dawlad goboleedyo weligood aan magaalooyin aan weligood wada yaro 1 kilomitir laami aan lahayn ayaa maanta intaasoo kilomitir laami ah oo loo dhisay oo maxaan ku raaddaa meelaan shalay nal ka shidnaa jirnaa maanta nal ka shidan yahay meel 17 sano iskuul aan laga furinaa maanta iskuul ka furan yahay meel dhowr iyo 10 sano iyo 20 sano aan bar caafimaad oo maxaan ku raaddaa caruurta lagu talaalo aan lahayn maanta u jiraa hadda xukuumadan iyo baarlamaankan iyo dawladdan maanta jirtaa gaarsiisay si zaaidiso gaarsiisay meelahaas fogfogoo dhan laba iskuma keeni karno dadkii mas'uuliyadana saartay oo aan u jeedna inay baahan yihiin oo ay dhibaataysan yihiin oo tacliin ay rabaan oo caafimaad ay rabaan oo biyo ay rabaan oo maxaan ku raaddaa amni iyo maxaan ku raaddaa deganaanshiyo ay rabaan oo na soo wakiishona yiri intaas dawladnimo wakiil looga tiin dawladnimaduna waa intaas hana loo ilaaliyo diinta hana loo ilaaliyo dalka hana loo ilaaliyo hidaha iyo dhaqanka iyo afka iyo maxaan ku waxa suuban noo soo wakiishay inaan ku celino caaytan iyo aflagaade iyo iskala saarid iyo iskala qaybin iyo dawladii caayideeda lafteeda iyo maxaan ku hay'adaheedii caayidoodii iyo deegaanadii waxba ma reebin war ka xishooda kelmadda dadka kala qaybinayso ka xishooda waxa cadawgaaga farax gelinayo ka xishooda waxa maxaan ku iraadaay xoojinayo cadawgaaga iyo qaniiniyada uu kugu haayo iyo gribka uu kugu haayo iyo waxa kula damacsan yahay waxa xoojinayo ka gaabso ka xisho yaa la yeeli inta kale waa fiicana alxamdulillah waa soo kabanay waa socona waana sii kabanaynaa laakiin haddaan isku mashquulna annaga iyo aflagaadeynta iyo caayda iyo isnaciibka iyo ishabaarid biri labada maanta idaacadda isku taagan hada dadka Soomaaliyeed inay midaysiin mid yihiin daliil waxa labada maanta isku caaynayo idaacadda isku taagan biri markay iska hor yimaadaan habay is siinayaan war maxaa marka dadka adiga aad u fasahaadinay ninkan aad habaabad siinaysaa colaadba uma qabtide maxaa dadka u fasahaadinay oo magac xun iyo qaab darrada iyo wajiga xun iyo sawirka xun aad u tusaysaa dadka Soomaalidu aragtay ku shalay isdirsanay maanta dadka iska hor yimaadeen habay is siinayaan waxaan leeyahay marka walaalayaal aan xiskeena aan soo celino dalkeenu cadow uu leeyahay shabaabaa haysto dawladaha u soo baxbaxsanayo oo qaaranka goosanayna dhahaya duruufo kale oo maxaan ku raadayay ama abaarale ama fatahaadale ama wax kale lahaan haysto dhibaatooyinkii shalay fatahaada ay noo geysteen buundooyinkii naga dumiyeen wadooyinkii naga qaribeen wali aanan u helin inaan maxuu ahaydisno colaad in la abaabulo dadka مثلا dadku waxay soo qaadaan miyiga colaada ka taagan colaada miyiga ka taagan oo dhan magaalooyinka laga abaabulaa dadka miyiga wankii iyo ridii iyo saci iyo hashi ay lahayn inta suuqa kansadaan qoryo iyo rasaas kuma gataan inta badan mar wala qofku buu ciil isbido xoolihiisu waa laakiin inta badan ma dhacdo magaalooyinkana laga abaabulaa بالله عليكم دتكين باديها ميغا جوغاي waxay naga sugayaan waa adeeg inaan u fidano wanaag inaan u fidano inaan ballaarino biyo wanaagsan ay cabaan caafimaad ay helaan tacliin ay helaan maxaan ku yiraahdaa nolol ay galaan waa waxay naga sugayaan inaan isku dhiibno rasaas iyo qoryo ma ah
waxay mudnaa lahayd raacabta aan rasaas iyo qoryaha ku bixinayna kuwa kale inaan inta ku tuugno ugu gelino aan siino dhaana raalli ahaada maxaa idinka halaabay haalaha naqaata raalli ahaada intaan kuweena aan qoryo iyo rasaas aan ugu gadi lahayn nabadda saas ku timaadaana waa midda waarta ninkii reer hebelaha la hadli mayna lana heshiimaya ilaa hebel oo afka ku soo qaada kabtiisa inta la ma annagaa saana la dhihi karaa baba inta la yiro oo yiri jooga kabta haddaan afka ku qaado sow ma raalli garoobaysaan ha isii kabti mugu saa usii qaado qoladii kabta afka ku soo qaadatay inta ka hortimid ka qabatay ay tiri bis raalli ahaw awlaadiina meeshaas ay ku dhammaatay xikmada yacni dadka soomaalida qaarkeed dadkii hore iyo ninkii sabaynta inta soo watay reerkii u keenay laga qaban waayey sabayntii inuu isku sabayn xiru rabay sabayntii laga qaban waayey reerka banaankiisa geed ku yaallo degay sabayntiina meesha ku xirtay reeraha subaxii ariga la deysanayo ku darsado war halii ilaaliyo sabayntan halii haye halii ilaaliyo ku darso sabayntii waa dhashay sabayn kale dhashay markay saddex sii marayaan yaa la suursaday war ninkaan ma tagaaye waana oday waayeela ma dili karee aan la fadhiisan waa loo tagay maxaa rabtaa halii keenu dhahay muxuu ahaay sabayntii saddexaad loo keenay sabayntaada waa tan intaan ayada dhashay wuxuu yiri waxaan rabaa huu dhahay waxa aan meeshaas intaas u joogay labadii sabeynadood dhashana in la ii reebo tii aan keenana in layga qaado nabadiina in la ii dhiibaan rabaa 100 ariya inta la isku soo dara odayga loo keenay la horta 100 kan ariya qaado nabadiina waa tan waa wadaay qaado dib daba u dhicmaysa war dadku dad saas oo xukama oo xikma leh oo maxaan ku raaa wanaaga wax walba u huraya yaa joogay dadkii yaa nahay aawe dadkii waa nagu jiraan waa buuxna laakiin maxay qabaan waa aamusan yihiin ama marka waxa la leeyahay odax mo reer hebel ah wanaagii reer hebel ma anaga ku ka dhashay halka inay qabsadaan yiraan say u dhahday anaga ba baxo ahay wareey ka tagay ma qabtiin nabadaan anu socdaa nabadna waa rabaay waxaan u diin jooji inuu yiraahdo oo dhiirado yaa la karilaaya dadka Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan ee haybada sharafta leh walaalayaal kelmadda xun hal joojiyo kelmadda xun waxba ma tarto xumaanay aakhira beel iyo adduunyo beel isla socday keenta nin siyaasi oo taageeraysayna kuma caayida iyo xumaanta aad ku taageeraysayna kuma garab taagna aday ku kala tahay ma dhihin kuma dardaarmin ma rabno siyaasad noogama jirto xukun nagama jiro sharaf iyo haybad nagama jirto qof Soomaali oo walaala in la aflagaadeeyo ama la caayo wax dan oo kaleena iyo cid aan u dirsanay cid wakiil nooga ah ma jirto cid wakiil nooga ah ma jirto taas waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed meel ka soo joogaan kii wadayna inuu joojiyo kii maqlayna kii waday hadduu arko inuu yiraahdo wareey adiga jooji qodobkaas waxaan rabaa inaan intaas uga baxo khayr iyo wanaag iyo horumarna waan u rajaynayaa ummadda iyo nabad iyo qalbigooda ilaahay inuu burcad isu mariyo meel kastoo ay joogaanba dadka farqooda la isku xiri karay qalbigooda la isku xiraa ilaahay aan sheegay quraankiisa ku sheegay in uu dadka qalbigooda isugu xiray waagii maxaan ku raadad dadka qalbigooda uu kala tagay ee diinteenuna ay iimaanaysa haddana ilaahay waxaan ka baryaynaa dadkeena qulubtooda inuu isku xiro dadkeena qulubtooda inuu soo duuyo ducadii ahayday bageena burcad Allah isu mariyo ayaan muxuu ku soo gabagabeynaya taas waa intaas qodobka labaad ee aan rabo yahay qori ya rasaas sideedaba yaamba ma aha yaamba beer lagu tacba ma ahan go'aana dawladda ka soo gaartay xukuumadda ka soo gaartay qawaaniinta ku qorantaa qoraka ganacsi hubka ganacsigiis waa mamnuuc sideedaba yaan lagu kadsoomin yaan gurigaaga lagu soo kaydsan yaan baabuurkaaga lagu qaadin adigu ha ka shaqaynin hadhow mala iyo muxuu ahay habartay waxba tarimayso gurigaaga haddii ciidamada amniga ay ogaadaan in uu hub ku jiro waaranay maxkamadda ka soo goosana waa lagugu soo galaa cawada 9 saac waa lagugu soo galaa sharafaan lahay waan leeyahay sharaf jibi iyo aniga gurigayga la baray sharaf ma liida daa waxaas ka shaqeeyo hayst hub haddaa gurigaaga ku kaydsanaysid aad og tahay
nin maxaa ku cirtoogta inuu leeyahay iyo mid maxaan ku raadaay tuug oo cirtoogta ka soo gato u wado in dad lagu soo haligo u wado adoo og hadaa guriga ku keedsanaysid sharafna malihid ilaahayna kama adan cabsan wax lagu dhowra ma qabtid sarkaalan ahay siyaasiyan ahay madaxan ahay kanaan ahay malihid qof dadka waxa lagu laaynayo ee dadka in la laayo inuu fududeeyo rabaay sharafna male xasaanadna male wuxuu leeyahay malaha awada 9 saac waa lagu soo galaa guriga hadaa dagaashina waa lagu la dagaalaa qaanuunku waa kula dagaalaa waa la mamnuucay hub ogow qofkii hub daba joogow bariyahan waad arkayseen waana sii socotaa akhyaar badan oo maxaan ku waxa ku jirana waa xiran yihiin xabsiga ku jiraan baarisa ku socoto qalabkeedina waad arkayseen waa la soo qabtay kuwa kalena hadaa lagu daba jiraa hal jooji ayadana hal laga waanto waxa kale oo ciidamada amniga awaamir cad lagu siiyay baarayaan dadka colaadaha miyiga ka jira magaalada ka horiya rasaasta inta ka dhiiba qoryaha inta ka dhiiba lacagta shidaalka inta ka dhaxiya kan ka waxay waasaas war xumaha ka shaqeyn waxa qiimeey waxan muxuu yihiin maswaasiin islaamnimadu ku banaan yihiin maswa ku reeban yihiin haka qiimeey waxa عاطفتها يوحى أو سكول عن جوجن تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان قولك إلهي واحد وريانا اسكو كالميسان حمها أن اسكو كالميسان سماها وناقا اسكو كالميسان نبض إنان هلنو أن اسكو كالميسان دولة إنان يالنو أن اسكو كالميسان بردتك الصومالية ولا ريال عقلها إذن سوى النقضاء deganaanshiyaha xagga aqliga ah idin soo noqdo dal barwaaqo ah oo fiican ayaa ilaahay nasiiyay fursado badan leh hadda ka hor baarlamaanka oo ka hadlay waxaan dhahay war shan waxyaabood oo muhiim ah ugu taagan saddex kamid ah annaga awoodeena ma dhama caalamkan ay naga jirtaa oo rabnaa inuu siiyo labana annaga laga rabaa saddexdii caalamka uu aan nasiiyay aan waa nasiiyay labadeena qabno maxay qabno noogu yihiin warkaas hebelo inta ka laabo xaq ka laabo milq adduunyadu waa nala yaaban tahay war dadkaan maxay yihiin maxaa ku dhacay waxaan rabnaa waa idin siinay kan aan loo sameeyo waa idin sameeyay maxaa u sameysanaadeen waxaan adduunyadu sidee u nooshahay maxaa ugu noolaalaadeen adduunyada dawladay leedahay qaabay dawladu u dhisbaan qaabay u jiraan qaabay maxaa idin ku dhacay maxaa dhowr iyo 10 sano aad dastuur aan ku meel gaar ah u fadhidaan maxaa dhowr iyo 30 iyo dhowr sano dalka deganaanshiyo iyo dadka Soomaaliyeed israbo maxaa loo laayahay waana la yaabayaa inta soo dhan inaan israbno iyo inaan dalka deganaansho u helno iyo inaan dastuurka dhameystirano iyo dawladnimada adduunka taqaana inaan keenno annaga nagu xiran tahay nalooma sameyn karo caalamka oo dhan waa isku yimiday magaaladan iyo dalkan waa wada joogno dhowr iyo 30 dawladood ciidamadooda ayagoo keena halkan dawlad waana loo dhisi waayay inta soo jeerana loo yeero warba soo baxbal lidimaba iman kare bal idinku banaanka imaadoon tagnay waana loo soo dhisi waayay wali waana annagu inaan dhisana dawladii waay meelaha waliba nala soo gaarsiiyay waana la soo kabay meelaan joognaa war dawladnimada aan ka shaqeyno dawlad aan noqono dalkaana dawlad dictator kama shaqeyn kartee dawlad dimuqraadi ah ka shaqeyso haday tahay midda dhexe iyo haday tahay midda deegaanka intaba nidaam aan dimuqraadi ahayn dalkan kama shaqeeyo ninka siyaasiga ana asaal laga rabaa dadkiis inuu ku qanacsado ajandaha siyaasadeed iyo wanaag uu rabo oo dadkan la jecel yahay inuu gaarsiiyo asaal laga rabaa dadka inuu ku qanacsado si ay codkooda u siiyaan handadaad iyo dil iyo dagaal iyo qajajac iyo ma aha laguma kasban karo dadka Soomaaliyeed qalbigooda laguma kasban karo laguma heli karo laguma haran karo in maxaan ku iraahday la argagax geliyo la cabsi geliyo laba si ay dadku isku la jiraan trust afka qaad waxa lagu yiraa ama is-aaminid kalsooni inay jirto oo aniga aan kalsooni ku qabo adigana aan kalsooni ku qabto waa la isku la jiraa in la kala xoog badan yahay oo xabad inta madaxa la iska saaro wareeyaa yaal waxaan ku irayaal la isiraane waa la isku la jiraa midaan dambe isla jirideedu ma waarto
xabad in madaxa la iska saaro cabsi in la iskula jiro isla jirkaasi ma waaraayo waxa kaliya ee waari kara waxa waaye kalsooni in la iskula jiro kalsoonina waxa la iskula jiri karaa wax lagu heshiyo naga dhaxeeyo isla ognahay inaan leenahay intaasaa kalsoonina la iskula jiri karaa haddii wax lagu heshiyo isla ognahay aanay laakiin wax intaan ku heshiino isla ogaan haddaan biri ka bixi tago kalsoonidii sii dhaawacaya haddaan biri maxaan ku raad dhiiqa ku soo tuuri tago wixii aan soo weyno oo wixii fiicnaa inaan wada ilaalinayo kalsoonida waa dhaawacmay xoog la iskula ma jiri karo cidna xoog laguma qabsan karo 34 sanaan joognaa waa nooleyn waa soo joognay waa soo arkeen qof Soomaaliya wax dheer ma jiro qabiil Soomaaliya wax dheer ma jiro iska ilow kulli waasmanahay walaalaanahay waxaan iskula jiri inaan isla jirnaanan rabnaa waana muhiim waxaan iskula jiri karnaa rabitaan iyo kalsooni inaan abuurno qasab iskula ma jiri karno aflagaadeen iskula Allah naga keena meeshaas aad iyo aadan ugu adkaynaya kelmadaas dadka Soomaaliyeed inay ka waantoobaan kuwa oo ku jirana gacanta in laga qabto la joog adiga ha hadlin kan noqo waxa tiri ha yeelin in la yiraahdo on la cabsi gelin oo la sandidin saas aragna arinta hubkana waa saas ka ganacsiga hubka waa mamnuuc ama gad ama kaydi ama transport gareer qaado baabuur saar ku qaad waa mamnuuc qaanuuna jiro qaanuunku wuxuu ogol yahay jiro qaab hub loo maamulo ogol yahay jiro raac qaanuunkaas lagu qabsan maayo qofka kugu qabsada waa ka gardaran yahay adoo qaanuunka ku taagan wixii aad sameysay waa lagaaga gardaran yahay wixii dadku dawladnimadu wixii qofkii laga maarmaan u aragtay inuu hub haysto in loo sharciyeeyo oo cadaymo la siiya dawladdu ay ogoshahay kii loo arkay inuu ka maarmo u baahnayn raalli ah in la yiraahdo lagu sharciyo maayo marka walaalayaal waxaan rabaa qatarahaas aan ugu socdo hal ogaado guud ahaan xaaladda kale dalku waa fiican yahay xumaani ma jirto dalku waa fiican yahay dawladdu waa fiican tahay jahada u soconaay waa fiican tahay dib kama jiro odayaasha iyo culamaa diinka iyo aqoonyahanka bulshada rayidka ka tirsan siyaasiyiinta ah dadka dhagahoodana wax fiican maqashiyaan leeyahay indhahoodana wax fiican tuso shacabkana waxaan leeyahay siyaasigan aad soo dooratay fursad sii oo kugu shaqeeyo inuu ku shaqeeyo soo dooratay hadduu ku shaqeyn waayana muddadiisu waa kooban tahay biri iska baxde meeqa baarlamaan meeqa wasiiro meeqa madaxweyne yaa dalkan soo martay marka maanta yaan waxba lagu rafanine qof walba fursad la siiyo dadka qaar liida doono kuwa liitana raalli ah biri la yiraahdo kuwa ka fiican lagu soo bedesho aad iyo aad u mahadsantihiin khayr iyo wanaaga idin rajaynaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh